iyadoo dhammaan ardada wax ka barata dugsiyada deegaanada Galmudug ay u fadhiisteen imtixaankii teeramka ee sanadkan ayaa waxaa haddana maanta kormeer ku tagay iskuulaadkaasi mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada Galmudug kuwaasi oo u kuurgalayay sida ay u socdaan imtixaanaadka dugsiyada mas'uuliyiinta ka tirsan wasaaradda waxbarashada ee maanta kormeeray dugsiyada magaalada Gaalkacyo ayaa kala ahaa madaxa waaxda imtixaanaadka isku duwaha wasaaradda waxbarashada iyo kormeerka waxbarashada iyagoona dugsiyada ay tageen kula hadlay ardada imtixaanka u fadhiday isla markaasna ku dhiirigeliyay inay ku kalsoonaan waxbarashadooda kormeerkooda kadib ayaa waxaa saxaafadda la hadlay isku duwaha wasaaradda waxbarashada isagoona u mahadcelisay macallimiinta iyo maamulka dugsiyada magaalada Gaalkacyo oo ay tilmaameen in si habsami leh ay imtixaanaadka u wadaan iyagoo waqtiga ay wasaaraddu u qabatana qabsoomeen dhammaan iskuulada ku yaala imtixaankii teeramka ahaa sanadka 2011 iyo 2012 taasna waxay ka dambeysay kadib markii wasaaradda waxbarashada Galmudug ay horay u qoontaysay una amartay in ay imtixaanadu dhacaan xilligaas oo ahayd maanta 10 bisha 2012 nasiib wanaagna dhammaan dugsiyada ama iskuulada ku yaala Galmudug State way wada galeen saaka imtixaankii sidii loogu talagalay u dhaceen waana wasaaradda waxbarashaduna waa ay booqatay dhammaan dugsiyada ku yaala Galmudug State waana sidii loogu talagalay ayaan hawshaasna halkaan uga mahadcelinaynaa dhammaan maamulayaasha dugsiyada oo u hoggaansamay awaamiirtii iyo qoondayntii ay u qoondaysay wasaaradda waxbarashadu inay maanta oo kale imtixaanadu dhacaan si kastaba ha ahaatee dhowaan ayay ahayd markii wasaaradda waxbarashada Galmudug ay ku wargelisay dugsiyada deegaanada Galmudug in 10 bishan ay bilaaban doonaan hal mar oo qura imtixaanaadkii dugsiyada ee teeramka Roble Maxamed Dirir Home Cable TV Gaalkacyo.